wadanka uu ka leeyahay continuity uu dawladdiisu ay isdaba joog tahay waa ka hormar badan tahay dawladaha isbedbedela maxaa yeelay marka aan dhanka dhaqaalaha ka fiiriyo haddii la rabo in lagu maalgashado waxaa la fiirinaya deganaanshaha dawladdaas inay tahay dawlad kula dhammaystiri karta mashaariicdii la bilaabay iyo shaqadii la bilaabay iyo dawlad heshiiskii la galay fulin karta laakiin haddii uu jiro isbedel joogto ah cid ku maalgashanaysa ma laha iyada naftigeeda doorashooyinka 4 sano dhacaya waxay tahay dawladdu haddii prediction laga samayn karo la saadaalin karo wax imaanaya waxa weeye aaminkaagana waa fiicnaanaya oo cidda rabta in wax kula qabsato waxay aaminsan tahay inaad joogayso ay kula shaqaysan karto marka isbeddelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dib u dhaca